ugu dambeyn Soomaaliya sagaalkii xildhibaan Abdullaahi waa lagu soo celiyay marka si cadaalad haday u soo dooranayso dib u soo dooranayso hadii wixii malxiiskii iyo qof meel geeydi hadii ay ku soo celinayso ayaday u taala Abdullaahi waa maasantahay adii Universal TV dacwadan galkeedii waxa la gudbiyay jimcihii la soo dhaafay waxa la mudeeyay 21 bisha oo jimco ah oo maanta ah marka saaka 3 saac iyo bar ayay dacwada furantay jimcihii horena waa joogay 3 saac bar markay furmaysana hoolka dacwadan ku jiray marka garsoorayaal wadamada bariga Afrika ka socda ayaa kiiska aad u aqriyay meelo badan laga taabtay dhinacyada dacwada maaragtay soo gudbiyay feelashooda la aqriyay ugu dambeyn Soomaaliya sagaalkii xildhibaan Abdullaahi waa lagu soo celiyay marka si cadaalad haday u soo dooranayso dib u soo dooranayso hadii wixii malxiiskii iyo qof meel geeydi hadii ay ku soo celinayso ayaday u taala laakiin dhinacyada dacwada gudbiyay way guuleysteen oo kiiskii waa lagu soo celiyay Soomaaliya yaa gudbiyay dacwadan markii hore Cabdisataar dacwadu waxa gudbiyay 3 qof oo laga hor istaagay tartanka doorashada Ali Abdinuur la yiraahdo oo ku tartami lahaa oo doorashada laga hor istaagay kursigii Abu Kurmardaad ku soo baxay waxa la yaab leh Ali Abdinuur oo magaalada Muqdisho jooga ayaa 60 iyo hoogaa cod loo yeeriyay waxa laga dhigay inuu tartanka ku jiro uu ka qayb galay hoolkaana laga celiyay waxaana sabab u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo Ali si gaar ah u diidana oo Abu Kurmardaad watay marka Ali waa taas nin kale oo Cabdiraxmaan Saalix la yiraahdo oo asigana bangiga dhexe lacagta $10,000 fiiga ku shubay warqadii CID-da qaatay shahaadadii musharaxnimada qaatay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga hor istaagay marka Cabdiraxmaan Saalix iyo Ambassador Awil safiirkii hore China u fadhiyay ayaa saddexdaas xubnood ayaa ugu weyneed ayaa kiiska gudbiyay Soomaaliyana maanta waa lagu soo celiyay marka dacwadan waxa ku guuleystay nimankii kiiska u furay baarlamaanka bariga Afrika daban Cabdisataar eedaha ajeedinayso hadda waa hal dhinac inaguna ma hayno xaqiiq rasmi ah oo ku saabsan sida aad u dhigayso waase ka gudbaynaa su'aasheeda kale waxay tahay mar haddii maxkamaddu ay diiday hanaankii doorashadan sagaalkan xubnood ma waxay noqonaysaa in mar kale dib doorashadii loo qabto mise waxaa jirta wadooyin kale oo ay tahay in la maro ama ay maxkamaddu soo jeedis Abdullaahi aan ku sii soxo eedo oo hal dhinac ma jeedinayo dawladda Soomaaliya waxa uu joogay habdooraha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Nuux iyo xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Jaabir iyo xildhibaan Mahdi Guuleed iyo Cabdisalaan Hadliye oo sagaalkii xubnood la soo celiyay kamid ahaa iyo Ambassador Ilyas Ali Hassan safiirka Tanzania Soomaaliya u fadhiyay marka maxkamaday fadhiyeen miya maxkamaday fadhiyeen marka hal dhinac oo eed ah kaliya ma jeedinayo ayaga waa wareysan kartaa hadaad rabto aniga daneeyaasha kiiska ayaa kamid ahaa waan u mahad celinayaa si xor ah oo xalaal ah oo Afrikaanimo ah oo walaalnimo ah in la ogolaaday inaan kiiskan dadka dhageysanay aan kamid noqdo maanta isla su'aashii hore ma dhammaan mar kale ayaa dib doorashadii in loo qabto ay tahay mise fursad kale u furan oo lagu xallin kara arrintan Soomaaliya maya baarlamaanka waxa soo celiyay maxkamadda East African Community marka baarlamaanka East Africa ka qayb gali lahaayeen hadii maxkamadii wadamada East Africa ay isla dhisteen oo intii kamid ahayd sagaalkii wadan oo maxkamadda bariga Afrika ay go'aan ku gaartay xildhibaanadan si musuqmaasuq in lagu soo doortay oo dalka Soomaaliya lagu soo celiyay marka waxay noqonaysaa dawladda Soomaaliya in dib maaragtay si xalaal ah u soo xulato wixeedii haday rabtana ay iska haysato ay kor u sii haysato marka waqti maba jiraba 4 bilood ayaa muddaxileedka madaxweynaha ka haray baarlamaankana wax 3 bilood ka yar ayaa u hartay marka doorashadii Soomaaliya nagu soo foodle oo weyneed marka dadka dibadda nagu metelaya hawshooda waa gaar xubnaha dawladda metelaya joogay maxkamadda wax dareena ama falcelina oo ay sameeyeen oo arrintan la xiriirtay ma jiraan maya dawladda Soomaaliya loo yaray qabsatay dhinacyada maxkamadda gudbiyeen loo yaray qabsadeen loo yarka oo hadlaayay labada dhinac cid oo dawladda Soomaaliya ka socota oo meesha ka hadashay ma jirto cid maaragtay dadkii dacwadda gudbi kamid ah meesha ka hadlay ma jiro
si sharciyan oo lawyer ah oo true lawyer ah ayaa loo dhageysanayay marka go'aankana maxkamadda ku dhawaaqday marka aadan ugu xumahay dad Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed gudaha lagu soo dulmiyay inay dibadda cadaalad ka raadsadaan maxkamadda ma cadeymaha lagu soo bandhigay oo eedaha loo gudbiyay la xiriira sidee u aqbashay dacwadii ay gudbiyeen xubnihii cabashada qabay cadeymo iyo riboodyo iyo macluumaadyo la soo bandhigay maxkamad xeerkeeda intaas la eg oo wadamada East Africa oo 9 wadan ka kooban dhan ay garsooriyaashooda ay joogaan ma aha maxkamad waxyaabo iska caadi ah qaadaysa marka eedo culus iyo riboodyo iyo macluumaadyo meesha la soo gudbiyay waa lagu soo celiyay dawladda federaalka Soomaaliya 9 xildhibaan Cabdi Sataar hadda ma dhammaan 9 xubnood ayay tahay in dib loogu laabto doorashadoodii mise 3 xubnood ee cabashada laga gudbiyay ama dacwada laga gudbiyay ayuu xukunkan si gaar ah u saameynaya maxkamaddu waxay xukmisay 9 xildhibaan in lagu celiyay dawladda federaalka Soomaaliya marka micnaha 9koodii waxba kama jiraan ayay ka dhigan tahay oo sida aan dhageystay marka 3 xubnood waxay kamid ahaayeen 9 mudane sidaasana maaragtay lagu soo wada celiyay kulligood marka dawladda Soomaaliya haday doorashadeedii ay dib u soo saxayso iyo haday iska haysanayso ayaday u taala Cabdullaahi ugu dambeyn maxay ka dhigan tahay arrintan maxaase ku dhacay dadaaladii guddoonka baarlamaanka uu waday gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka oo la xiriiray in arrintan la xalliyo waxa marka ay u gudbaan maxkamad meesha diblomaasiyad iyo siyaasad waa ka baxday marka maxkamadii ayaana soo gabagabaysay kiiska marka cid kasta oo si kasta u shaqeynaysay maanta gabagabadii ayay gaartay marka sidaas ayaana lagu soo celiyay 9 xildhibaan oo dawladda federaalka Soomaaliya wadamada East Africa u soo dirsatay aad ayuu maatay Cabdisaar Xasan Cali ayuu ahaa oo siyaasi oo isagoo ku sugan wadanka Tanzania gaar ahaan magaalada Arusha maantana goobjoog ahaa dhageysiga dacwadii laga gudbiyay 9 xildhibaan ee Soomaaliya u dirsatay baarlamaanka Bariga Afrika qadka igu warramay Cabdisaar aad baad u mahadsantahay